صلى الله عليه وسلم بشهر محرم نايتاي طبعا وانا هبين عانا وهبين كي يوم العاشورها اي الهي انبياديسا سيده موسى وهيليي انتي كسور جيدين الهي وقرقومي waxaynu halkan caawa ka hadlaynaa oo aanu fariin u direynaa dhammaan cidii ay khusayso arinta aanu ka hadlaynaa ee manhajka wasaaradda waqaafta diintu ay u soo saartay madaarista ama malcaamadaha diiniga ah tarbiyad ahaan waxaanu fariintan u direynaa oo ugu horeysa haddaan nahay culimada ahlu durqa الغادرية أهل السنة والجماعة قبل كتقدر أنه بيان كيغان كو عدينينا إن آنو منهج كاس آنو كسهور جيدنو فرين تيراس وحي حنبارسان تاي oo ay ku socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi waxay mar labaadna ku socotaa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kaloo ku socotaa golaha guurtida Soomaaliland waxay kaloo ku socotaa dhammaan cuqaasha culimada salaadiinta axsaabta siyaasadda asxaab xisbi qaran ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa manhajku waxay leenahay dastuur been leenahay haddii nahay jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkeenaasi waxa ku sharci garaysan qodobka in dalku lagu xukumo Shaaficiya madhabka Shaaficiga lagu xukumo oo qodob dastuuriya annagoo ka duulayna qodobka dastuuriga ah in aanay macnaha dawladdu aanay jabin oo aan madhabka Shaaficiga madhab kale oo macnaha xambaarsan fikir kale oo wahaabiya oo khilaafiya taanu ka duulayna waa taas mudane madaxweyne dhammaan golayaasha baarlamaanka dhammaan golaha guurtida dhammaan xisbiyada qaranka Soomaaliland dhammaan cuqaasha iyo salaadiinta iyo intay khusaysaba waxaan leenahay haddaan nahay culimada ahlus sunna wal jamaa ee dariiqada al-qaadiriya gobolka togdheer manhajkaas horeeta iyo dibeetaba waanu diidanahay waxaanu ku diidanahayna waanu sheegaynaa insha Allah ta'ala waxa weeyaan manhajku marka leenahay madhab iyo aqeedo waa kala jaad marna waxa la yiraahdaa madhabka waan diidanahay marna waxa la aqeedada waan diidanahay madhabka Shaaficiga wuxuu xambaarsanaa aqeedada al-ash'ariyya madaaristuna waxay ka madax banaaneed aslanba in manhaj cid gaari soo samaysatay macna loo sameeyo lamaan wadankeena oo dhamina waxa uu ku salaysan yahay dal kastaaba madhab uu leeyahay madhab kale lama keeni karo kaasu sida uu dastuurku u dhigayo kaasu ku dhaqan galaya oo ku shaqeynaya annagu waxaanu diidanahay wixii aanay dawladdu go'aan ka soo saarin ee cid gaari ay ka soo saartay oo ku magacaaban dawladda waliba waana wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Khaliil madaxweyne waa ninkaasi 70 jeer baa hadii dariiqada aanu nahay uu duulimaad nagu yahay annaga hadduu tahay masaajida uu naga qaaday oo uu bareer u soo raacay cidii kale qaadisay waa ta koowaad hadii ay tahay golaha sare ee culimada ee Soomaaliland ee la sameeyay oo aanay culimadu aanay ahlu durq aanay ku jirin oo si bila cadaalad loogu soo miiray dariiqada al-wahabiyada waana arin fog oo laga shaqeynayo ilaa mandaqada gobolka oo dhan ilaa Kenya isku xidhan ilaa intaas maadaama gruubkaasi isku xidhan yahay waxaanu ka caawinaynaa oo kale madaxweyne markii masaajidada uu naga qaadayay wasiirku ee kooxda soo raaciyay kama hadal mar kaliya wax jawaaba oo aad ka bixisay ma jirto markii golaha sare laga hadlayay ee culimada markaana madaxweyne si cadaalad darra baan tirsanaynay mar walba annagoo dariiqada ugu badan
dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland boqolkiiba 80 dadka jooga waa ahlu durqu waa ahlu sunna wal jamaa ay waafaqsan yihiin dariiqada Shaafici madhabka Shaaficiga ee aqoonta ashcariga haysta maadaama sidaa aanu nahay oo aanu ku calaamadsannahay madhabka Shaaficiga iyo aqoonta ashcariga ee saxiixa ee asaliga waxaan u aragnaa in lagu soo duulay oo diiniyana loogu soo duulay oo dal ahaanna loogu soo duulay oo dariiq ahaanna loogu soo duulay baan u aragnaa wasiirkaasi haddii aanad naga qabanin markii soo horeba magacaabistiisa baadil baan u arkaynay maadaama xisbi gaar ah oo nagu mucaarada uu ka soo jeedo iskama aanan ciidan kari waayin laakiin wuxuu loo adeegsaday arrimo dawladeed buu leeyahay xukuumadda arrin xukuumadeed buu loo adeegsaday sidaa daraadeed culimadii Hargeysa way hadashay qolo Boorma ba hadashay dhowr khudbadood oo hore laga hadlayna madaxweyne waad ka aamusto maad ka hadal habeenkan caawa waxaan ku leenahay madaxweyne manhajkaas dib ha loo celiyo oo hal la joojiyo manhaj ka distooriga waafaqsan oo culimadu ay u dhantahay ha noqdo maadaama wasiir kasta oo dawladda ka tirsani waa inuu ummadda cadaalad u sameeyaa diinta isku wada weeyaan waa inuu dariiqooyinka isku wada weeyaan markuu diinta u xilsaaran yahay laakiin haddii uu diintiina u xilsaaran yahay dhinacna uu dhisayo dhinacna duuminayo taa aqbali mayno mana yeelayno wallahi iyo billahi iyo tallahi waxaan ku horeeyay makana hadalka Sheekh Cabdillaahi waxaan ku wareejinay hadalka imikana Allahumma salli ala Muhammadin culimada kale iga dambaysa arrinkaasi degdeg ah waxa looga qabtaban leenahay haddaan culimada gobolka tog dheernahay si cilmiyeysan looga qabto arrinkaas salaamaya waxaan ka hadli doonaa insha Allah afar fariimood oo insha Allah bidmillaahil kariim aan dirayno marka horeysa fariinta ugu horeysa waxaan u dirayaa culimada ahlu sunna wal jamaa culimadu waa hore iyo dambaan anugu kala aqaanaa culimadii hore dadka qaar baa u yaqaana timaweynun culimada hore timaweyn ma aha waxa weeye waa culimadii qaadiriye loorin jiray ahlu sunna wal jamaa ayay ku kulantaa qolada anugu fariin baan u dirayaa walaalayaal waxaan leeyahay meel aad joogtaanba tan faraariqiina la arkay diinta u midooba oo dalka iyo diinta iyo dadkaba kuwii mas'uulka ka ahaa baatiina xilis ka saara oo aslaax iyo wanaaga ka shaqeeya walaalahay culimada intaasaan u dirayaa walaalahaya aanu ka mid nahay shacabkeena qaaligaana waxaan u dirayaa anugu fariin baan halkan uga dirayaa shacabka wanaagsan ee aslaax ka shaqeeya shacabkaas oo taageersan culimadoodii hore taageersan boqolkiiba 82 markaan yareeyo ay taageersantiin oo aad taqaanaan inay tahay culimadii diinta idin keentay ee aabihiin iyo hooyadiin isu soo meerisay awowgiin iyo ayeeyadiin isu soo meerisay aqeedadoodana ah haysataan weligeedna ku soo dhaqmayseen aad taageersantiin inta yar ee imika la duwayay idin fidmayn culimadana yaan la idin kala dhaxmarin la isku tiirsada oo walaalaha iyo sida aad u taageersantiin shacabka qaaliga ee reer Soomaaliland waxaan leeyahay ku tiirsada culimadiinii hore sidaad u taageersantiin waan ogno waa taageersantiin yaan la idin fidmayn jiilka dambe ee soo socdanayaan diinta la idin ka sadrin shacabkana intaasan faraya fariina waxaan u dirayaa culimada dambe ama loo yaqaan wahaabiyada halka ay ku kulantahay ama dulquwaysar loo yaqaano wax imaka bilaabmay maaha qolabana waa nasabada u sheegata ayna maaha qoladaasna waxaan leeyahay saddexda ugu waaweyn ayaan anu wax ka taabanaya saddexda ugu waaweyn aan wax ka taabanaya waxa weeye umal baa idin amra umalna anigu waxaan ahay dariiqadii Sheekh Mahdi wadanka uu ku dhashay uu ka soo jeeday kaal kumantay baan anigu Sheekh Mahdi dariiqadiisi baan ahay waa reerka uu ka dhashay warkaaga adigoo aan Soomaaliland ba ku aqoonin baan anigu hayay diinta kitaabka gurigeena laga diiday reer Soomaaliland kuma dhax furi kartid baan leeyahay cidna ma sabidi mayno
umal oo xukumo oo maalintii u dambeysay imika ina afuriyay iyadoo rabadaan oo la og yahay ciddu afurin karayay umalna anigu taasan leeyahay waxaan leeyahay oo kale khaliil walaal waxaan haynaa codkaagii hore oo duuban oo makiinaysado ku ansixinayso ayaanu haynaa masaajidada iyo makiinaysadaha isku wada kari mayside walaal waxaan ku leenahay mid u go waxa intaa ii raaca sheekh dirirow sheekhaaga sheekh cabdilaahi dhafoor sheekh maxamed cabdi dhafoor isku deegaan baanu nahay saaxiib ilaahayna been kama sheegayo waxaan ku idhi walaal hadalku aan kaa maqlay adiga aan ku haye codkaagu ka duuban yahay waxa weeye laba midoo qaladan anigu horta ku haya intan anigu laysal khabaru kal muqayantigu rasuulku yidhi waxaad lagu sheegay iyo waxaad aragtay isku mid maaha anigu sallallahu alayhi wasallam anigu laba qalad baan ka haya waxaan ka hayaa rasuulka aabihii iyo hooyadiiba waa la cadaabayaan waxa weeye saban uftireyn lagu jirayna caamaduna way taqaanaan dadkuba xisaab lahayn waxa kale oo ka haya maalin dhaweed tan aan ka hadlayna adoo ka hadlaya rasuulku wax imaamaba ugamu tagin diinta markii uu dhintay un baa mashaawiro la galay imikana culimadu maxay isla haystaa mashaawiraha la galo afartii imaam ee rasuulku uga tagay diintana waa dafirtay hadalkii sheekaagu igu yidhi wuxuu ahaa anoon ka masabidaynin ilaahay haddaad garanay og ilaahay waxaan ku wiri aanaan kugu been abuuranayn nagama kaa qabato qofnaba nagama qabato inaan ku been abuuranahay maxaad ka doontay markuu ku yidhi qoladan waxaad tidhi intii baanu sheekh su'aalu naaskii ka raysan waa sheekaaga kalaamkan ka qaaday sheekaagana waa xay maanta codkayguna wuu tegayaa waxaan ku leeyahay walaalo dee imika lacagaysatoo su'aalu naaskii ka raysatee walaal waxaan ku leenahay diinta ku soo noqo toobad keenoo qaadiriyaad wax ka baratee diinta saani noogu dhaqban ku leenahay intaa waxa kale oo aan halkan fariin uga dirayaa jamhuuriyaddeenna barakaysan waxa weeye culimada waa kala taqaanaa annaga waxaa noogu dambeeyey dawlad qaadiriya oo na tixgelisa dawladdii udub in cigaal baa noogu dambeeyey xaaji maxamed ibraahim cigaal baa annaga noogu dambeeyey waxa weeye walaalayaal culimadii hooyadiin iyo aabbihiin isu soo meerisay ee dalka diinta keentay weeyaan culimada caawa halkan ka cabanaysaa waxaan leenahay asaaradiin wax kuma lihin manhajkii walba wax kastaba annagu siyaasad kuma jirno waxaan leenahay walaalayaal xuquuqdii culimadii hore yaan la ilaawin ee hoosa loo eego oo mas-uuliyadda dadka idinkaa ka wada mas-uuliyadda ha la suga baan leeyahay intaas